Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada guuleystayaal, guul iyo barwaaqo iyo gobonnimaan idin rajeynayaa. Meel kastood ku sugan tihiin subax wanaagsan. Arariyo suban baan idin leeyahay, meel walbaad joogtaan iyo waqti walba idin tahay. Nimciyo baraaran idin rajeynayaa. Waa maanta iyo maalin cusub iyo muuqaal cusub iyo malabkii shinnida asal, kambanigeeni asal ee lagu dawoobay oo laga daba dhacay malabkiisii baan maanta idin wadaa mar kale. Haddaba dad badan oo naga mida ma yaqaanaan malabka asal, mana oga. Inta og wayba ogta way taqaanaa. Intaan ogeyna waxaan rabaa inaan ogeysiiyo insha allahu tacaala videogan qabto meel dheer gaarsiiyo walaalo badan oo u baahan ha ka faa'iidaystaan gaarsiiyo. Inta aanan guda gelin barnaamijkeena waxaan idin sheegayaa insha allahu tacaala inaad na soo follow garaysaan, subscribe-kana siisaan, YouTube-keena Faa'iida TV 18 xagga TikTok inaad nagala socotaan #20 ama Samira Koin 35 aad nagala socotaan insha allahu tacaala. Halka ayaan kusoo gudbin doonaa, linkigana hoos baa idin dhigi doonaa. Taleefanada aad ka heli kartaan malabka saafida ah, mudaawaadka ah, shinnida asal ama kambaniga asalna asna meesha ayaan idinku qori doonaa hadduu ilaahay idmo. Waxaan idin leeyahay gobonnimo iyo sharaf si leh meel dheer u gaarsiiya. ayaan tan hadda YouTube-ka iyo adduunyo dhan waa ka maqnayne, dib ayaa loo soo noqday insha allahu tacaala. Waxaan rabaa marka inaan idinka dabageeyo. Malabkan waxaa laga keenay Ethiopia. Waa malab asal ah, waa malabaan la barxin, waa bayuur, waa sidii uu shinnida beerkeeda uga yimid. Rabbi baa looga baqayaa, barax iyo balaayo laguma darin. Sonkor hadday horey ku daashatay, keliya xanuun, beer xanuun, Soomaalida waa is ognaa. Inteena badan waxaan qabnaa beer xanuun, subaga iyo sokortaan aad u cunaa. Haddana dadkii waxaa lagu beergooyay oo lagu dhibaateeyay waxyaabo lagu sheegay malab oon malab ahayn. Walaal malabkii saafidaha anaa ku haya waa kana fiiri. Indhuhu kaa deeqay adoona malab aqoon xataa markaad aragtid inuu saafiya halkaasaad ka arkaysa. Iskuma eka waxyaabaha la laaqa iyo waxyaabaha qashinka lagu daro iyo wax markay saafiyiin iskuma eka. Malabkuna wuu kasii daran yahay. Malab biyo oo dareerayo oo kala daadanayo oo markaa saas u shubto sidii biyo u daadanayo oo haddaad tiish ku shubto ama mara ku shubto ka dhex baxaya haddaad aragtid ka carar. Malab maahan, sokor baa lagu qasay, sun baa lagu walaaqay. Laakiin haddaad aragto malab saa u soconaya, saa u da'aya miida, Allahu akbar, fiiri sidii uga soo go'ay geedkiisi, shinnidiisii looga soo lisay garbihiisii baa halkan kugu keena. Ogow ma fududa in Yurub malab la keeno oo malab saafiya la keeno oo balaayo kiimiko lagu darin oo balaayo iyo process baas marin oo macdintii laga saarin. Saaxiib, waa mudaawaad, macdintiisi baa ku jirta. Quraanka lagu sheegay inuu dawo yahay, Ilaahay baa sheegay. Isku daweeyo, isku dabiib cudurrada iyo dhiig karka iyo sokorta iyo macaanka iyo kolestaroolka, qalqalka iyo wareerka kugu dhacay, thyroidka, meelo badan halkan laguma soo koobi karo dawada wuxuu u yahay. Waxyaabo fara badan buu u daweeyaa. Ilaahay baa dawada haya, laakiin Rabbi ha kuugu daro. Annagana waan ku dawownay alxamdulillah. Anigan idin la hadlayo ayaa dawo badan ka helay. Ilaahay ugu daweeyay, ugu caafiyay. Adna si aad uga caafimaado ku dabiiba naftaada, ku daweey familkaaga oo ku durduuro, kuna soo dhawaada soona dalbada insha allahu tacaala. Waxaan idin sheegayaa haddaad Yurub joogto, haddaad America joogto iyo haddaad Afrika joogto, meel kasta waa lagugu keenayaa. Lambarada aad ka heli karto insha allahu tacaala shaashada ayaan idinku qori doonaa haddii Ilaahay idmo. Linkiga hoose ayaan ku qori doonaa lambaradaad kala xiriiri doontaan haddaad wadankii joogto iyo haddii aad qurbaha joogto. Intaba meel walba oo joogto waa lagugu keenayaa, boostaa lagu soo dhigayaa, diyaar buu ku yahay. Isku daweeyo, isku dabiiba. Indhaha ayaa macallin ku ah, garantii buu leeyahay, garantii la hubo oo marqaati ma doontaa buu leeyahay. Malabkan haddii ay wax kaaga soo noqdaan ama wax haba yaraatee